wacanoo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinna halkaani waa warbaahinta Baraawe qodobada maanta warka idinku hayso Baraawe News waxaa ka mid ah daawadayaal madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa baahiye muuqaalo muujinaya isagoo jimicsi samaynayo iyo dalkaas Botswana oo muddo 14 cisho ah karantiimay 57 xildhibaan Ra'iisul Wasaarihii hore Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa isaguna maanta lagu aasay waddankaas Britain kadib markii uu haleelay cudurka COVID-19 daawadayaal wararka caalamka ee gudaha maanta warbaahinta Baraawe ugu hayso ku soo dhawaada daawadayaal warkayna oo faahfaahsan waa maalinimo Jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay 10 bisha Abriil 2020 aanu ku bilownay madaxweynaha waddankaas Uganda Yoweri Museveni ayaa baahiye muuqaalo muujinaya isagoo jimicsi sameynaya si uu u dhiirigeliyo muwaadiniinta dalkaas si ay guryaha ugu sii nagaadaan taasoo madaxweynuhu ugu leeyahay inay dadku guryaha ku sii nagaadaan madaxweyne Yoweri Museveni ayaa la arkay isagoo kabala'aana oo gurigiisa aqalka madaxtooyada jimicsi ku sameynaya Arbacadii madaxweyne Museveni oo mamnuucay meelaha dadweynuhu isugu yimaadeen dalkaas Uganda gaar ahaan caasimadda Kampala meelaha dadweynuhu isugu yimaadeen inay mamnuucto la soo imaan kareen sanadkii la soo dhaafay ahayd markii uu Museveni oo shaaca ka qaaday inuu iscaateeyay asoo u yeelay caafimaadkiisa awgiis bishii January ay ahayd Museveni inuu lugeeyay 200 oo kiiloomitir gudaha waddankaas Uganda magaalooyin ka tirsan uu soo lugeeyay dalkaas Botswana ayaa muddo 14 cisho karantiimay dhammaan 57 xildhibaan kadib markii kalkaaliye ka shaqeeyay aqalka baarlamaanka waddankaas laga helay cudurka COVID-19 oo dhibaatada dunida faraha bahan ku haya waxaa go'aankan uu yimid kadib markii dadkaas la baaray xildhibaanada dhammaantoodna waxaa lagu hay'adda u qaabilsan dadkaas iyo wasaaradda caafimaadkuba ay ku amreen inay iskarantiimaan Botswana ayaa Khamiistii xaqiijiyay 7 qof oo ku dhacay cudurka COVID-19 shaqaale caafimaad oo howsha ka waday hay'adaha caafimaadka waddankaas ay ka mid ahaayeen dadka laga helay xanuunka madaxweynaha waddankaas Botswana Masar siyaasi ayaa isaguna kulan oo xildhibaanada kala qayb galay kadib markii lagu dhawaaqay xaaladaasna madaxweynuhu waddankaas iyo dawladdiisu ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah dalkaas waxaa lagu soo rogay muddo 6 bilood oo bandow ah Botswana ayaa hadda xaqiijisay 13 qof oo ku dhacay cudurka COVID-19 waxaa dalkaas lagu soo rogay xayiraad socod doonta muddo 28 maalmood oo dalkaas idoo sidaas ay sheegtay afayeen u hadlay dawladdaas Botswana warbaahinta Mareykanka ayaa iyaduna sheegaysa hay'adda FBI-du ay diiwaan gelisay hub gaara 2 milyan oo qoray ee dadweynaha dalkaas Mareykanka ku dhaqanay iibsadeen bishii Maaj gudaheeda 2020 gobolka Los Angeles ugu sarreeya gobolada iibsaday hubka oo kaligiis iibsaday hub gaaraya 5 milyan qoray gobolada kale Los Angeles, California, Florida iyo Texas iyo gobollo kaleba dukaanada hubka lagu iibiyaa ayaa iyaguna sheegay inay dadku baahi aan caadi ahayn hubka u qabaan inay iibsadaan hay'adda dembibaarista ee federal ee Mareykanka FBI-da ayaa iyaduna baaritaan tixraaca ku sameysay 30.7 milyan oo qof oo damcayay inay hubkan ay iibsadaan bishii Maaj gudaheeda 2020 waxay tirada ugu badneed ee la diiwaan geliyo muddo 20 sannadood 1998 ilaa hadda ee gudaha Mareykanka magaalada London waa maanta waxaa lagu aasay Ra'iisul Wasaarihii hore Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde kadib markii uu haleelay cudurka halista badan ee COVID-19 Ra'iisul Wasaaraha ayaa maanta lagu aasay magaaladaas London iyadoo la tixraacayo farinta ay dawladda Ingiriiska ay ku xadiday tirada dadka ka qaybgalayaasha aaska Nuur Cadde gabadh oo dhalay Ra'iisul Wasaarihii hore Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa warbaahinta u sheegtay in aabaheed maanta la aasay
daawadayaal warkii caalamka iyo gudaha idinkaga heyna waa nagintaas dhinaca farsamada waxaa noo fadhiya injineer saki anigu cabdiraxmaan warka ayaan idin socodsiinayay faafinta warka waa xaggiina daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo.